بسم الله الرحمن الرحيم وشرماك محمد وهلكن iga soo jeediya dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu yahay Sharmaaka Media Channel marka caawan doonayaan kasii warbixiyo ama sii wado qodobadii inoo socday toddobaadlaha inkastoo ka raagay bariyaan oo ka mashquulay nimkaas daradeed caawan doonayaan bilaabo oo qodobadii inoo socday aan sii wado todoba ka dhigo qodobkan ni hor yaala imika waxa weeyaan qodobkii 15aad ee waxbarashada dalka qaabkiisa ama loo tafatiray macnaha siduu yahay waxbarashadu amba muhiimaddu sida loo kala saarayo waxyaabaha sidoo kale mudnaanta kala leeyihiin Allahumma salli dawladda mudnaanta siinayso waxbarashada inkastoo mudnaanta ay tahay waxbarashada tahay mudnaanta koowaad ee dal ku horumaro amba ku baabao sababta dal hadduu waxbarashadiisu ay hooseyso dalkaas waa dal baabaa dalka hadduu waxbarashadiisu heer sare gaadhay la gaarsiiyo waa wadan horumaray ayuu noqonayaa Allahumma salli ala Muhammad marka hadan noo bilaa insha Allah way ku soo dheeramayo hadalka waa waxbarashada dhalinyarada iyo isbarbardhig sportska macnaha waa waxaweyaan ciyaartii noo dhigeen qodobka marka hadalka qodobka koowaad amba xeerka koowaad dawladdu waxa ay mudnaanta gaar ahaaneed siinaysaa horumarinta balaadhinta iyo faafinta cilmiga iyo tacliinta iyada oo u aragta in ay tahay waxbarashadu tahay maalgelin ugu habboon ee kaalinta ugu weyn ee ka qaadan karto horumarinta siyaasadda dhaqaalaha iyo bulshadaba macnaha hadalkan markii hore sheegaysa halkaasay ka soo baxaysaa horumarinta siyaasadda dhaqaale ee bulshada ku gaadha meel ay ku gaadha wax weeyaan waa aqoon waa xeerka labaad waxbarashadu waa mid u danaysa dadweynaha kuna habeynaysa waayaha iyo deegaanada gaar ahaaneed ee bulshada Soomaaliland macnaha qof kastoo meel ka soo baxa wadanka ayuu kobcinayaa baa deegaankiisu soo kicinaya qodobka xeerka saddexaad barashada iyo tarbiyadda diinta islaamku waa dariiqada aasaasi ah dhammaan heerarka waxbarashadana waa ku khasab isla markaana horumarinta dugsiyada qur-aanku waa waajib saaran dawladda halkaasna waa diintii ay horumarinaysaa oo dee qof aan diin aan baran amba diin aan lahayn halku tagayo qof sawska garanaya qof hadduu diintiisa sax horumar buu gaadhay ilaahay yahay jannada buu siinaya hadduu dee imtixaanka ku dhacana dee imtixaanka ku dhacayo dee halkii abaalmarintiisa baa la siinaya qodobka afraad ama xeerka afraad oo jeeda muwaadiniinta iyo shisheeye dalka degani waxay furan karaan dugsiyo iyo barnaamijyo waxbarashadeed tababar oo heer kasta oo ah waafaqsan xeerka waxbarashada markaas xeerkaas waxa weeye xeerkii si barwaaqo loo furay kale qofku macnaha laajib furan karaa uu leeyahay muwaadinka furan karaa uu leeyahay laakiin xeerka hadduu ka hor imanayo waxbarashadaas ka hor imanayso xeerka waafaqsan waxbarashada abadiinta waa laga joojinaya waayo halkaas ku daayay xeerka shanaad dawladdu waxa ay mudnaanta koowaad
siinaysaa waxbarashada aasaasiga ah, waxaana ay u howlgalaysaa in ay gobollada iyo deegaamooyinka lagu baahiyo waxbarashada aasaasiga ah, si gobolkii iyo u tartamaan iyo deegaankiisii macnaha tuulooyinkiisa heer tuulo uu kabac u soo gaaro. Halkaasna laga doonaya waayo lambarka 6 ee ciribtirka akhriska qorista la'aanta iyo waxbarashada dadka waaweyn waa waajib ummadeed, waana in shacabka iyo dowladuba awood isku geeyaan fulinta waajibaadkaas. Macnaha qofkii weynaa iyo qofkii yaraa inay sinaadaan, waxbarashada ay ka sinaadaan baa la doonaya. Sababtaa dee qofkii weynaa laga yaabaa xilliyadii aan dagaal ku jirnay dad waxa jira dee weyni soo korayo dee dulcad weyni ku tegay intaa la dagaalamay oo dhan aan waxba baran, waqtiga wax ku bartaana markii dambe waddanka soo galana ay waayey oo dee intay dee caruurtoodii say caruur dhaleen dee caruurtoodii ula jahaatamayeen. Marka waxbarashadaasna si waajib ay noqoto waa in layska saaraa uglemi waxaan jeedaa muwaadin iyo waxaan jeedaa muwaadin maaha ganacsata iyo dowladeedba in wax ka qabata la doonaya si ay kobaca waddanka waxbarashadu heer sare u gaadho aba diiniyanba. Qodobka xeerka 7 baan ku jeedaa siyaasadda qaranka waa waxbarashadu aasaasiga ahi waa lacag la'aan. Macnaha dugsiyada dowliga waa lacag la'aan. Xeerka 8 si dhalinyaradu loogu xaqiijiyo korinta iyo jidhka iyo maskaxda caafimaad qabta caafimaad qaba iyo korniin lagu qaado barbaarintooda iyo dareenkooda. Dowladdu waxa ay ahmiyad gaar ah siinaysaa horumarinta iyo dhiirigelinta ciyaaraha jidhka iyo isboortiska, kuwaas oo loo aqoonsan doono maadooyinka aasaasiga ah oo ka mid ah manhajka waxbarashada dugsiyada dowladda iyo kuwa kale. Halkaas iyo xeerka way qoreen, xeerka lama hayo, dowladdu way sameyn, dowladda dambena ka sugi doona. Macnaha waxbarashadu qofku markuu wax baranayo dugsiyadana wayna goob ay ku ciyaaraan loo sameeyo basketball iyo tii kale lugta iyo football iyo loo sameeyo goob ay ku ciyaaraan qofka dhalinyarada uu ku jimicsado. Halkaana may sameyn taa waan ka suganaa horumarinta dowladdii xeerka dhamaystirta waan sugi doonaa insha Allah haddii alla ka dhigo. Marka halkaasaan ku joojinay xeerkan waa xeerka ugu dheer. Xeerkana waa xeer la yareysan kara maaha, waa xeerka muhiimadda koowaad ee waddan uu leeyahay. Waxbarashada waa ta ugu qaalisan iyo sportska. Marka xeerka saas ugu dheer yahay kaabis iyo wax kordhina waa lagu sameyn karaa xagga dowladda dambe way sameyn karaan insha Allah tacaala. waa saay nabadgelyo insha Allah waan markan isku iman doona insha Allah haddii alla ka dhigo. waa Sharmaake Maxamed Aadan ee kasoo jeediya dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. halkaasan sidaa iyo bye bye maca salaama.